satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye سعد القرحانيو سناني عدالة بان سعد القرحانيو سناني عدالة بان كما ودا سوغيناي صديقاغو وشرفي سهانكاغو وقولي سعدالكاغو ونبدي سفركاغو وقيري يا سماد برواقادي صدوو مدحوينهنو صدوو مدحوينهنو صدوو waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goordhow ka soo degay garoonka waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow bulsho ku jecel ku soo dhawow magaaladaadii labaad ee Garowe dhammaan ummadda Puntland waxay ku qabaan muxabba iyo kalgacayl insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan noqon dootid madaxweynihii ugu horeeyay intuu dalka soo caga dhigo runtii si qurux badan loo soo dhaweeyay runtii waa u qalantaa waana u qalmi doontaa waana ku jecelnaa inta nolosheena ka dhiman you are our best leader anigu Suldaan Maxamed Saciid Ismaaciil waxaan ku faraxsanahay inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka noogu yimaado oo aanu ku soo dhaweynayna gacmo furan annagoo nagu yaqaan dawlad jacayl qaran jacayl iyo dhismo jacayl madaxweyne soo dhawow baan محمد عبد الله مدحوينه دلكو محمد عبد الله مدحوينه دلكو الله عذوقاق عيلكي والكتور الله عذوقاق عيلكي والكتور مساجد سو مساكين تقوديو مساجد سو مساكين تقوديو اللهم ضعاق ويا بدن هجرو اللهم ضعاق ويا بدن هجرو سومالي ميدي مغعاق وهجرو سومالي ميدي مغعاق وهجرو وجلبسنا وقرحده u taaganahay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waxaan leenahay madaxweyne reer Puntland way ku jeceliin waana ku jeclaan doonaa soo dhawow halkaas farxad iyo jil waxa la dhahaa farxad jacaylkii jilbaysnaa adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane adigay ku sugayaano ku sacaabatumayaane soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow madaxweynaheeno soo dhawow waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed wadane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweyne ku soo dhawow Puntland oo adigana ku jecel Soomaalinimadana jecel ku soo dhawow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dawladnimada ka jirta aad aragto
la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimana diyaar u ah inay dhegaystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya geedi socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dowladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo galeelideeda diyaar oo inay ka qayb qaataan waxaan maanta aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan aan socdaal ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigeyga xaqiiqatan laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay inaan arko intaas oo qof oo reer Puntland reer Garowe ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidadka taagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad yaan uga mahadcelinayaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkan waxaan u imid inaan arko suu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ee koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan tago dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo uqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoon-yahanada civil society-ga jaamacadaha ardada dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsan haddii la yiraahdo nolosheeda markii ugu horeysay waay سماها وذي صومالي ذا مذيّيو